madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo jeedinaya khudbad dheer ayaa weerar afka ku qaaday xildhibaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan golaha Koongareeska ee dalkaasi isagoo sidoo kale sheegay in dawladda Soomaaliya aysan ka jirin wax nabad ah. Madaxweyne Trump oo taageerayaashiisa kula hadlayay magaalada Tulsa ee gobolka Oklahoma ayaa sheegay in Ilhaan Cumar ay doonayso inay Mareykanka ka dhigto dalkii ay ka soo qaxday oo kale ee Soomaaliya. Sidoo kalena waxa uu tilmaamay in Soomaaliya ay ka jiraan wax dawlad ah oo kala dambeyn oo sida uu hadalka u dhigay. Madaxweynaha Mareykanka ayaa xusay in Soomaaliya aysan lahayn ciidamo dhisan sida booliiska iyo nabad sugidda isagoo tilmaamay in kaliya uu ku jiro amar la'aan iyo jahwareer Soomaaliya. Ilhaan Cumar waxa ay doonaysaa inay Mareykanka ka dhigto dalkii ay ka timid Soomaaliya oo kale oo aysan ka jirin wax dawlad ah, booliisna kama jiro, nabadi kama jirto, balse waxa kaliya ka jira waa amar la'aan iyo jahwareer. waxaanay noo tilmaamaysaa halka uu dalkeedu u socon lahaa. waxaan leeyahay maya ayuu yiri madaxweyne Trump. si kastaba ha ahaatee maaha markii ugu horeysay madaxweyne Trump uu ku dhawaaqo hadal xanaf leh oo ka dhanaha Soomaaliya isagoo ku weeraraya Ilhaan Cumar oo asalkeedu yahay Soomaaliya balse hadda ka tirsan Koongareeska Mareykanka. Xamse Barre, Star TV.